Niyaddeeda ayaa meel kale ii sawirayso, mase filimka aan daawanayo waa mid dhab ah. Ma waxaa la iigu diiday maanta qabiil ee tahay? Alla familkaygu maxaa ka qaldan? Maxay sidaan iigu galayaan? Maxay jaceylkaygu u tixgeli waayeen? Aabbow, gabadha anigaa jecel, qabiil ha fiirin ee gabadha ii doon baan ku dhahay. Waxaan idiin soo gudbi doonaa qiso jacayl oo aad u xanuun badan, qalbigaadana wax badan ka beddeli doonto. Qabiilow, adiga maxaa tahay? Maxaa liigu kaa diiday? Qabiil iyo jacaylna xaggee iska soo galaan? Waxaan idiin soo gudbi doonaa qisadaas oo xanuun badan. Halka aad ka daawanaysaan waa barta YouTube-ka aan ku leenahay ee Socdaal 24. Wiilka iyo gabadha maanta qisadooda aan idiin soo gudbinayo waxay isku barteen goob iskuul oo wax lagu barto. Gaashaankooda iyo noloshooda waxay ka soo bilaabatay dabaqadda ugu hooseyso ama dugsiga hoose. Waa ay soo rafaadeen, waqti farxadeed ayay soo qaateen. Markii qalbigooda oo kala go'ay ayayna waxay iskugu imaadeen dugsiga dhexe. Dugsiga dhexe intay socdeen wuxuu ahaa xiriirkoodii iska bilaaw, sidoo kale wuxuu ahaa xiriir iska dhexdhexaad ah. Dugsigii sare markii ay soo gaareen ayaa waxaa isqabsaday gaashaanihii jacaylka ama farxaddii jacaylka ama udgoontii jacaylka ama wax walba oo jacaylku lagu dareemi karo. Dugsigii sare markii ay soo gaareen ayayna waxay isla meel dhigeen xiriirkooda jacayl ee quruxda badan siduu u sii soco lahaa, ayaga oo isla meel dhigay mustaqbalkii ugu quruxda badnaa iyo markay dhammeeyaan dugsiga sare inay is aroosi doonaan. Waana mustaqbalka qof walba oo ku riyoodo, laakiin ayaga sidaas waa ay ka duunaayeen oo waxa ay ku heshiiyeen maalinka jaamacadda ay dhammeeyaan in arooskooda dhici doono. Labadooda iskuulka intay joogaan xiriirkooda jacayl oo quruxda badan wuxuu ahaa mid walba midka kale inuusan qarso karin, waxaana la dhihi karaa jacayl daymadiisa ay ka weyn tahay. Waxay ahaayeen laba qof oo aad isku jecel, mar walbana waxay isku fiiri jireen daymo naxariis leh. Macallimiinta, ardayda iyo qof walba oo iskuulka joogana waxa uu dareemay labadan qof xiriirka jacayl ee quruxda badan oo ka dhaxeeyo. Inta badan dadka marka ay jacaylka sameynayaan waxay u qaybsamaan laba qaybood oo ah midna dhalanteed midna xiiso. Laakiin waa ay adag tahay 6 sano, 7 sano, 8 sano inuu xiriir jacayl oo qurux badan oo socdo. Haddana wax walba oo dhexdooda ka dhaco ayaga la isxaliyaan. Labadan qof ee lamaanaha maanta qisadooda ay idiin soo gudbinayo waxay ahaayeen lamaane nolosha wax walba ee tahay iskugu dulqaatay. Markii ay dhammeeyeen dugsiga sarena waxay ku heshiiyeen inay jaamacad bilaabaan. Isla jaamacaddii waxay ku heshiiyeen hal faculty inay ka bartaan, waxayna barteen ganacsiga ayay ka doorteen. 4 sano kadib waxa ay soo laqeen jaamacadda. Markii jaamacaddii ay soo dhammeeyeen wuxuu ahaa ballanka inay isguursadaan. Mar walba taladaada iyo tan Rabbi waa ay kala duwan tahay. Sida adiga aad rabto iyo sida waalidka ay kula doonayaan laba ayay kala tahay. Jacaylka marna waa uu khasaaraa, marna waa uu guuleystaa. Laakiin jacaylkaadu inuu guuleysto ayaa jeceshahay mar walbo. Qalbiga mar walba wax jecel waxa uu neceb yahay mar walba murugada inuu dareemo, asagoo jecel mar walba naxariista inuu dareemo. Adiga oo naxariis haysto ayaa laga yaabaa xilliga guurkaada oo soo dhammaado ama xilliga guurkaada oo soo dhowaado in familkaada arrinta si kale ay u rabaan. Sidaas oo ay tahay adiga ma ogid wax walba oo dhici doono jawaabaha markii labada reerood ay iska hor imaadaan. Xilligii jaamacaddu waa ay soo dhammeeyeen. Waxa ay sugayeen waxay ahayd farxaddii reerkooda siday u dhisi lahaayeen. Waxa ay sugayeen mustaqbal qurux badan inay dhisaan. Waxay sugayeen waalidiintooda inay ka farxiyaan.
waxa ay sugayeen sida sharafta leh ee isku soo doonteen waxayna mid walba oo ay kamid ku heshiiyeen in waalidiinta loo sheego si ay isku soo doontaan wiilku waa uu dhaqaaqay familkiisa ayuu u tagay si uu ugu soo sheego gabadha uu doonayo waa ay soo dhaweeyeen arrinkuna waa ay ka aqbaleen aabihii wiilka dhala ayaa weydiiyay gabadha cidda ay tahay markaas ayuu dhahay ma garanaayo aabihii waa uu ku gudbay caadi waa iska daa ayuu dhahay gogasha marka la iskugu imaado ayaa la isbara doonaa gabadhii sidoo kale waa la weydiiyay waxba kama garanaayo ayayna dhahday gabadhii iyo wiilkii maalin maalmaha kamida waxaa dhacday wiilkii inuu soo waco una sheego inuu dadkiisa oo soo wato si uu u soo doonto sidoo kale waxa uu raacsiiyay sheekii ku meeri lahaayna inuu la socdo gabadhii aad ayay ugu faraxday maalmaheedina wuxuu ahaa maalmihii ugu quruxda badnaay markaas ayayna dareentay maanta ubixi muddo ee soo beeraysay inay heli lahayd laakiin waxa soo socdo iyo wawiga weyn ayaa hore loo dhahay guriga markay imaadeen oo ay iswareysteen oo qabiiladii la isweydiiyay kadib wiilkii odayga dhalay aad ayuu u xanaaqay markaas ayuu dhahay ciddaan waa cidaayasno miis aroosno ayuu dhahay wiilkii intaas markuu maqlay madaxa ayaa laba kala noqday ilinta ayaana aad ugu soo burqatay aad ayuuna ugu murugooday hadalkii aabihiis uu ku dhawaaqay sheekadu markay halkaas maraysay odaygii sidoo kale wuxuu dhahay adeeryaal soo baxa oo meesha fadhi nooma yaalo markaas ayuu sidoo kale u raacsiiyey adinkana raali noqda aniga guurkii waan ka noqonay wiilkii waa uu soo booday aabihiis ayuuna jilbaha qabsaday markaas asagoo lahaa aabe sidaas oran oo aabe sidaas sameenin naciimo waa gabadha aan jeclahay qabiil ma ahan ayada ayaan jeclahay darteed si aan u noolaadana ma aqaani waan ku baryaa oo isku ilow waxaas markaas ayuu aabihii u loowatay ayuu wiilkii feeraha ugu garaacay kadibna gaarigii ayuu xoog ku soo saaray wiilkii xaafadda ayuu imaaday isagoo maqana jooge laakiin gabadhi maxaa ku dhacay markay maqashay xaaladda meesha ka jirto gabadhi istaaga ayay ka dhacday wayna miir beeshay aad ayay u xanuun badan tahay qof aad jeclayd qabiil ahaan marka lagugu diido gabadhi isbitaal ayaa loola orday 4 maalin kadib isbitaalka markay ku jirtay wiilkina sidaan oo kale ayuu asagana ugu xanuunsanaay markuu soo miir beela ayuu wiilka aabihiis wuxuu dhahay war iska daay oo gabadhaas lama guursado oo waa dadka laga tiro badan yahay wiilkii xaajada ayaa ku xun wax walbana madaxa ayuu ruxayaa waxaan ciimo ahayn uma muuqdo wiilku waa uu iska jeeftay markuu hurdaba indhihiisa waxa la soo agmarsiyaa naciimo sidii maanta wax u dhaceen ayaa u soo sawirmatay wiilkii waxbuu isku raadsaday markuu wax isku raadsaday kadib ayuuna soo baxay isbitaalka ayuu gurigii gabadha ayuu tagay waxaana loo sheegay gabadhi inay isbitaal ku jirto markaas kadib ayuuna isbitaalka ugu imaaday isbitaalkii markuu ugu imaaday faleembooyinka ku surnaa xataa naciimo maysan fiirin farxad darteed ayay la ooysay isla markiina waa ay soo booday laabtiisa ayayna kadib gashay ayadoo ilinta cisho weyse oo lahayd aniga adduunkan farxad kuma lihi umana yeelan inaan ku sii noolaado haddaan ogahay in lii kaa diidayana qalbiga murugadaada maanan geliyeen laakiin dhibka jiraa wuxuu ahaay kuma sheegin aniga qabiilka ahay ee adiga sida farxad ku heli lahayd ayaan jeclaa lahay teedana maysan eegin wiilkii shib ayuu dhahay wax uu sameeyay ayuuna aqoowaaye gabadhu waa ay ooynaysaa laabtiisa ayayna ku ilmoonaysaa cabbaar markuu aamusnaay kadib ayuu waxa uu go'aansaday waxa uu dhahay aniga qabiil waxba igama gelin adiga ayaan ku jeclahay
weligeena waan ku jeclaan doonaa haddana waan ku jeclahay diyaar ayaan u ahay inaan ku arooso xaaskayga xalaashana adiga waaye Naciimo aad ayay u faraxday waxayna dareentay caafimaad kadib waa ay soo baxeen isbitaalka ayayna ka soo tageen waxayna imaadeen gurigooda ama gurigii Naciimo aad u faraxsan caafimaad qabto kadib wiilkii waxa uu go'aansaday gabadhi inuu la goosto gabadhii markii uu la goostay meel gooni ah ayuu degay cidiyo idilna waa uu ka dhex baxay kadib markii uu ka dhex baxay gabadhi iyo wiilkii hadda waxay haystaan jacayl qurux badan nolol qurux badan farxad qurux badan udgoon qurux badan murugadina waa isku iloobeen ciidaha deriska iyo qof walba oo yaqaanane waxa ay ku fahansan yihiin sida ay isku fahansan yihiin oo kale sidoo kale asxaabtiisa markuu wiilka la joogana waxa ay dareemaan sida quruxda badan uu xiriirinayo oo jaceylkiisa u tixgelinayo hadda Naciimo iyo wiilka waxay haystaan 4 caruur ah sidoo kale waxay haystaan jacayl qurux badan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qisadaas xanuunka badan adiga ahaan haddii kugu dhici lahayd maxaa dareemi lahayd qof sidaas kugu dhinta ma haysataa oo familkaada xataa ama familkiisa kaaga soo go'i lahaa waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal inta aan ku kulmi doono qiso noocan oo kala nabadgeliyo waa ku mahadsantiin daawashadeena